بسم الله وفاطمة علي iyo barnaamijkeeni taxanaha caruurta runtii maanta waxaan u wadaa sheeko aad u cajiib leh nin culimada muslimiinta ah ayaa waxa la yiri ardaydiisa u yeeray wuxuu yiri maanta waxaan rabaa markii cashirka kadib wuxuu yiri arrin baan dirayaa wuxuu sameeyay ardadii qof la arko shimbir soo qaaday oo u dhiibay ardaydu dhan shimbirta u dhiibay wuxuu yiri shimbirtan waxaan rabaa inaad ku soo qashiin meel oo nilga arkin ardadii qof la arko shimbirtii u qaaday mid wuxuu sameeyay guriga korkiisa taga meel ku dhunta shimbirtii soo qalay mid kale wuxuu guriga gadaashiisa tagay shimbirtii soo qalay mid kale wuxuu la tagay meel cid u tagay shimbirtii soo qalay bas waxay kadib adiga waxay u yimaadeen macallinkii iyagoo wada shimbirtii soo wada qaleen لكن هلويل أيوة هو ذي شمبرتي بس عالم ومعلق هاي وحكوا يري أنا جسوق مرة شمبرت السوق هذا سوق اللي بس مركز يري أنا جسوق مرة هن مال أنا جا أركين مركز يري ها وحكوا يري دي أنا جمال أو لجا أركين ما شفت يري لأن إلهي مال أركو يجا أركي كرا إلهي أركاي هذا ذاتك أكل لكن الله أي أركاي رمتي عالم معلق هاي runtii aad u farxay wiilkaas sababtu waxa waaye qofka inuu dareemo waaye ilaahay inuu waxa qalbiga ku jiro waxaan hadda iyo wixii qarsanba inuu ilaahay arkay marka ilmaha ama qofka yani waxaan ka wadaa markuu dareemo inuu ilaahay raqiib yahay oo ilaahay daalacanayo qaybka siriga iyo calinka waxaad qarsi wixii kale qofku wuxuu ku abuurayaa inuu ilaahay mar la arko يعني إلهي ماشو ربو وحا وناقو إلهي كادر بضي إناد سمينيسي ماشو إلهي نقول هاي نها سمينينا واتكعب سنسا مركا مراقبة إلهي إنو قفك يعني دريمو كنت واوح في عن ما أنت إنتاس أيان كسو يعني كسو قابيي أيضا يلين جرانيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.